golaha wuxuu ku caam noqday wadajir. golahu waa guurta, magaceenu waa dhex, dadka ayaanu dhuxu noqona, waynu guurta ahaanaa u sugan. waraaqdan balinku doonaha ugu rido, laakiin waraaqdeenu waa inay u sinaataa xukuumadda. guurtidu taladeedu waa inay mid ahaato. waa midkaas waa kuwa waa nabadgelyada. waxaa dhameeya guddoomiyaha, wixii la odhan lahaa guddoomiyaha waxaa leeyahay guurtidu meelay joogtaba waa inay dhex noqoto. meelay joogtaba inay dhex noqoto. musharaxiinta xaaj oo xisbigu u shaqaynaya aynaan iska dhigin. xisbiyada waa badnaa, laakiin waraaqan balinku doonuhu isagoo aamusan waa inuu ugu rido. ha iska ilaaliso guurtidu xisbi ay u shaqayso. xisbiyadoo dhan bay musharaxiinta xaaj waxaa ku daraya hooyad madaxnimada doonaysa ee tartamaysaa si sharafka waa inay u tartamaan. ninka imika khilaaf kiciya ee caytooda ama rabsho kiciya xagguu wax ka doonaya? isagaa dadka iska eriya. waa inay sidii loo doonay waxaasaa qaba, waxaasaa dhiga, biyii baa dhiga, sibirkii baa dhiga. adduunku ma dhammaado intuu dhisan yahay, dhammaan maayo. si basharlaha u tartamay, laakiin buugiya iyagii madaxnimada doonay kicin. ninkaas muxuu ninka imika buu xilaya xaguu ku socdaa? isagaa iskilagi iska ilaaliya. saddexdeedana tarsamaya iyo kaaliyaasha ha iska ilaaliyeen inay rabshad kiciyaan. magac baynu ku leenay nabadgelyada, magacahay naga duminada. gobonimadu waa nabadgelyada. si sharka u tartamay waxaasaa qaba, waxaasaa dhiga, kaasaan ku gaara, halkaasaan tartankii nidaamka ahaa qaaya kow. laakiin aqal la weeraray, baabuur la burburiyey, idinka idinka bilaabma. saddexdii idinka hoos u wada gidi. nin baa kaa doonto shicibka, nin baa ninkaa doonto ugu idinma kala xigaan. waa xisbi ureyna idinma kala xigaan. inaan habuuq, inaan racaysan, inaan gobonimada haynaga gaabeyno. waxaan leeyahay shicibka, rag iyo dumar, macallimiinta, ardada, daktarada, askarta, waxaan leeyahay mid ahaa idinkoo iswada ficil walaaqaa ku yidhi. nin maalinkaa doonta adoo qoslaya ugu, laakiin nin caysamaa inaga mamnuuca iyo nin rabshad kiciya yaa inaga mamnuuca. nin walbaa adoo maskaxdaada ku aamusanta oo ninkii kale u qoslaya. xitaa saddexda tartamaya saaxiiba ah ka helo uu rabo macaaw uga rabshadeen ee sharafka inaga dugo. nabadgelyada sharafteen, nabadgelyada haynoo ilaaliyo. oradan bilays wanaagsan baynu leehay. bilayska hadda nin waneeyo u shaqay leha u shaqeeya. bilayska culimaamudiinka caamka ahee soomaaliyadiina wanaagsan leha
kale rag iyo dumar dhalinyaro iskuul dhakhtar nin walbaan adigu naftaadu sharafka ilaasho naftaadu nabadgelyaday ku jirtaa saleebaan baa dambeeye iga horeeye nabadgelyadaa nin walba adigu hadday nabadgelya looga dhacdo nin walba waa madax hadduu buuga laga dhasho waa baaba caalamkaa ina eegaya waftiyo badan baa inoo yimi oo inala jooga waa layna eegaya dee sharafa laynagaga tago hallayna ammaano caalamkayna dhegaysanaya ee dantoodii soo xido faraa badan inala jooga yay ceebi naga sheegi sida caruureedyaynanu hadlo guurtibay kulligeenna bilayska wanaagsan walbaacudiinka iskuullada macallimiintu waa kuwa dowladda loo dhisaya sharafka laga dhiso magaca laynaga sheegay si wanaagsan haynagu dhacda insha allah watacaala nin walbaa madaxbaas hadday nabadgelyo inoogu dhacdo waxaan kaga baxaya saddex neena tartamaya nabaddaa ka shaqeeya ninka nabadda ka shaqeeya iskuliisiibuu dhisaya shicibkiibuu dhisaya inayaan hadalkana kaa soo bixi dhabaqa dambeyaa laga heena maqrib magaciiyu naga xumaanay salaamu calaykum